maanta waxaa sharaf weyn ii ah oo hambaliyada aan la qaybsanaa maalinta 3 December oo ah maalintii loo asteeyay dadka qaba naafada ma dhahayo aniga disable ma dhahayo dadka baahiyaha gaarka qaba waa dadka maanta loo dabaaldegayo waa dad wax kasta qabsan kara kaliya waxay rabaan in la hago kaliya ayay rabaan moogiye ma dhihi karno dad muxuu ahaa wax kasto ayaga ayaa baahidooda muxuu ahaa ma dhahayno laakiin waxaa maanta aad iyo aad halkaan ugu mahadcelinaa sida qiirada ay walaalaheen halkaan ugu sheegeen oo na taabatay xanuunka badan oo ugu horeeyay Maxamed oo ka soo bilaawday yaraantiisi iyo maanta meesha uu maraayo gabadhayda oo maanta iyadoo yar ayaa iigu dambeysay waxaan arkay maanta iyadoo weyn waxay dhiganaysay Albasiir muxuu ahaa maxad ah maantana maasha Allah maantaasi waxay ku haminaysay inay noqon doonto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ilaahay waxaan aga tuugaa in hamigeeda ugu muxuu u hirgeliyo sababtoo ah aniga 16 ilaa hadda wax badan ka soo wareegay ayagoo yar ah ayaan waxaan u geyn jirnay aniga si gaar ah maanta nasiib waxa u yeelteen anigoo wasiir dawlaha wasaaradda caafimaadka laakiin hay'adaha samafalkan ka shaqeyn jiray qaybaha kala duwan ha noqdaan muxuu ahaa waxaan tagi jiray muxuu qaybahooda kala duwan waxbaan siin jirnay inkastoo la covergareyn karin ama la dabooli karin laakiin waan isku xirneen inta badan ha noqdaan muxuu ahaa Al-Nuur ha noqdaan Albasiir ha noqdaan way badnaayeen waa intaan ka xasuustay dhagooliyaasha kulli qaar ayaan hay'addan u shaqeynay basas u gadeen si ay iskoolka ugu tagaan marka waa xasuustaa maanta nasiiba waxaan u helay muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka oo ahayd maalintii ugu horeysay ee u sameeyso xaflad marka waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa wax badan inay iska bedelaan hadduu Ilaahay yiraahdo